wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka Hirshabelle ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay kastamada lagu qaado cashuuraha ee ku yaala gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka. wasiirka maaliyadda maamul goboleedka Hirshabelle ay weeliyaan wasiirka ka tirsan Hirshabelle saraakiisha ciidamada dawladda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ayaa kormeeray kastanka Kalabayr oo ku yaala deegaanka Jawiil oo qiyaasii 35 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne. isku duwaha wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka Hirshabelle Cabdirashiid Warshame ayaa sheegay maanta laga bilaabo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku wareejisay qaadista cashuuraha gobolka Hiiraan wasaaradda maaliyadda. xaruntan Jawiil ee maaliyadda mataqaana ahaan jirtay intii waxa ka horeeyay maamulkeeda iska lahaa gobolka si wanaagsan oo qurxoon baa gobolka shaqadiisa u watay maamulkiisa wuxuu aad bay u haboonaayeen wixii maanta ka dambeeya waxaa shaqadii la wareegaya maamulka Hirshabelle wasaaradda maaliyadda ayaa la wareegaysa waxaana la jooga wasiirka maaliyadda iyo shaqaalihiisa hoose oo shaqada qaban lahaa maaliyadda marka insha Allah waxaan rabnaa in sidaas loo socdo maanta taariikhda bisha ay tahay 3 waxaan ku wareejinaynaa kastankii Jawiil annagoo ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolka Hiiraan waxaan ku wareejinaynaa wasaaradda maaliyadda. wasiirka maaliyadda maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Maxamuud Cabdulla ayaa sheegay in wasaaradda ahaan ay wax ka qaban doonaan dib u habeyn lagu sameeyo goobaha lagu qaado cashuuraha. waxaan ka soo bilownay magaalada gudaheeda meelihii wasaaradda maaliyaddu ay xaq u lahayd inay maamusho waxaan ka soo bilaabnay khasnadii iyo bangigii aan ka soo bilownay waan la soo wareegnay waxaan kaloo la soo wareegnay kastamka qaybtii airportka iyadana waan la soo wareegnay bartaan waa bartii saddexaad qaybo badan oo magaalada gudaheedana way jiraan qaybo kalena waa noo harsan yihiin laakiin maanta si official waxaan ula wareegnay arrimihii maaliyadda Hirshabelle ee gobolka Hiiraan wax kasta oo maaliyad ku saabsan oo boona la bixiyo waxay tahay rag ka midana waa magacaabay rag kalena wadadii ku soo jiraan marka hoggaankaas in la adeeco shaqada laga qaato halkan customiska bartaan waa 3 qaybood wasaaradda maaliyadda qaybta booliska iyo qaybta militariga ammaanka ayadana iyo qaybta booliska oo ayadana u qaabilsan arrimaha customiska oo tarafdaari wax yiraahdo waxaan shurta control marka wax loo baahan yahay wada shaqayn joogto ah kala bedel imaan doono dalcaala imaan doono waxa loo baahan yahay wajigii hore waji ka duwan in la sameeyo waxaan rabnaa dakhliga dawladnimo oo macnaha nala faray wasaaradda maaliyadda ahaan inuu kor u soo kaco waqti ugu dhaqso badan maanta laga bilaabo in laga dareemo dakhliga soo baxay shilin walba soo galay iyo shilin walba ka baxay meeshaan waa meelaha dakhliga ay ka soo gashay marxaladda aad ku nooshihiin ilaahay idinkiisa wax baa laga bedeli doonaa shakhsiyan dadka shaqeeya iyo habka ay u samaysan tahay cashuuraadka habka loo qaadanay dib loo habaynayaa dhismaha dib loo habaynayaa marka waxaa ilaahay mahadiya ayadoo maanta maamulku wada dhan yahay in howlgalkaasaan maanta ku soo aadnay waxayna socon doontaa arrin bilow ah waxayna gaari doontaa gobolka Hiiraan kulligiis waxaa kaloo ayana aan ku xijin doonaa gobolka Shabeellada Dhexe meel ka mid ah oo dawladdu joogto oo Hirshabelle nidaamkan waa gaarsiin doonaa waxaan u gudubnay heer dawladeed wax qabad cad iyo wada xisaabta. sidoo kale wasiirka maaliyadda maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Maxamuud Cabdulla ayaa isku duwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Hiiraan u magacaabay Cabdi Aadan Faarax halka Guhaad Cabdulla Xaambana loo magacaabay madaxa cashuuraha garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. waxaan magacaabay isku duwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Hiiraan Cabdi Aadan u magacaabay Faarax waxa kaloo magacaabay madaxa cashuuraha ee airportka nin la yiraahdo Guhaad baa magacaabay Cabdulla Xaambe marka labadaasan magacaabay kuwa kalena way soo socdaan. Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga ee Bulsho Beledweyne.